jira dadweynuhu walaa wuxuu kaga baxaa inuu helo war sugan wixii laga cabee isla laga waxiyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن غيرت قيمة قدرين تنجا مدن هودي النجال حريرة يكون صد وهذا برنامج كني كلنا كصحفي قطبات كانت كل جستن بلدوين الراديو استوديو سمجال كابتن ودنا كوفر أفريقيا برنامج كان حقوق قدرنا قضبات فربنا يكمل هنا دبعتين كله جستو صحفيين تصوماليين كود كلا داتن دفاع الدنيا دي ولي بقاسة كوا كنول ودنا كصوماليا برنامج كان وحنقص قدرنا مانتا تاريخ دي أوركا صحفيين تا أوركا هرمانين صحفيين تصوماليين وحنا برنامج كمرتين نوقع مانتا وري عبد الرزاق اسماعيل مرجريتي oo ahaa afyeenkii ururkaasi oo sanadii 2006 looga dhawaaqay magaalada Muqdisho Cabdirsaaq imika wuxuu ku sugan yahay magaalada Vienna ee wadanka Austria Cabdirsaaq ku soo dhaw barnaamijka waad mahadsantahay Cabdullaahi Amiin waan dhawahay aad baad mahadsantahay Cabdirsaaq bal waxaad marka hore tafaasiil naga siisaa taariikhda ururkaasi iyo waxqabadkiisii runtii waa su'aal muhiim ah ururkan oo lagu magac daray ururka horumarinta suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SODEJ ayaa waxa ku bahaysnaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo gabi ahaantoodba ahaa suxufiyiin Soomaaliyeed oo da'yar waxayna isugu jireen wiilal iyo gabdho ururka ayaa waxa lagu aasaasay magaalada Muqdisho dabayaaqadii 2006 waxaana gudoomiye loogu doortay Ilyas Cabdiraxmaan halka gudoomiye ku xigeenna uu ka ahaa Ismaaciil Mire bartamihii 2007 waxa afayeen ka noqday anigoo ah Risaaq Ciilow Margareeti sidoo kale waxaa jiray xubno kale oo iyagu ugu cadcadaa ururkan walow waqtiyadii dambe adduunka lagu kala firxaday isla markaana qodobba meel uu jaandhigay Cabdirsaaq bal ka waran xilligaasi waxay marxalad aad u adag ee dalka jirtay sidee idinku saamaxday inaad markaasi urur sameystaan hadafka ururkaasina markaasi muxuu ahaa oo la jaan qaadaysaan sida magaca ka muuqatana ururka waxaa lagu magac daray ururka horumarinta suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SODEJ hadafka aan higsanayna waxa uu ahaa inaan isku keenno suxufiyiinta Soomaaliyeed ee wagaas ku noolaa magaalada Muqdisho isla markaana aan u gaari lahayn horumar iyo waliba markaasi gool markaas la tiigsan karo ujeedkana ugu weyn taas ay ahayd walow markii dambe ama hadda kala firxadka ku yimid suxufiyiinta waxa uu yimid kadib markii ay sii xoogaysteen dhibaatooyinka joogtada ah ee aalaba soo gaaraysa suxufiyiinta Soomaaliyeed isla markaana ay sii daciiftay didiilada ama rajada muuqan karta ee Soomaaliya gartay Cabdirsaaq ma jirta dhibaatooyin aad kala kulanteen ku dhawaaqista ururkaasi ama markaad sameeynayeen oo kale runtii maysan jirin dhibaato qaas ah oo anaga ila soo gaartay walow laakiin marxaladii waagaas aan ku shaqeynay amaba ururka uu ku dhisnaa ee Soomaaliya ay ahayd marxalad aad u adag runtiina waxaan dadaal u galnay isla markaana aan isugu duubnay in horumar aan gaarno isla markaana aan sameeyno wax muuqda oo markaasi dadku ay arki karaan isla markaana dhalinyarada waagaas suxufiyiinta ahaa ay ku tiirsan karto walow waqtiyadii dambe waqtigu uu inoo saamixi waayay oo aan la wadaagnay suxufiyiinta Soomaaliyeed dhibaatada joogtada ah ee soo gaaraysa gaar ahaan magaalada Muqdisho Cabdirsaaq sida magaca kacad ururka wuxuu ku magacaabay ururka horumarinta suxufiyiinta Soomaaliyeed ma jiraan iskuulo aad sameeysan oo ku horumarinaysan suxufiyiinta da'yar ee soo baxaya markaas ama ku bixinaysan aqoonta suxufiyiinta Soomaaliyeed way jireen iskuulaad fara badan oo aan sameeynay runtiina waxaan ugu gol lahayn in aan soo saarno dhalinyaro iyagu markaas da'yar oo ku soo biirta dhanka saxaafadda runtiina waa dareemi kartaa adiga xitaa waagaas magaalada Muqdisho waxaa ka jiray dhibaatooyin aad u fara badan sidaas ay ahayd dadaalkeenu kamuusan marnayn oo mar walba waxaan u tafaxeednayn in aan soo saarno iskuulaad isla markaana aanu wax ugu qabano dhalinyarada markaas soo kobcaysay laakiin waagii dambe waxaanu ka soo tagnay magaalada Muqdisho oo halka dhalinyar qaarna hadda ay ku nool yihiin magaalada Muqdisho laakiin intii ugu badneyd waxay soo aaday qurbaha taas ayaana kaliftay in habsami u socod amaba ururku howlihiisii hakad uu ku yimaado waa gartay Cabdirsaaq marka maxaa soo markii inaad dalka isaga soo carartaan oo inta soo aadaan dibadaha ama qurbaha soo aadaan oo kale ururkiina uu sida habsami socodkiisii uu dib u dhac ku yimaado arrintaasi maxaa sababay la karaa waxa sababtay waa dareemi kartaa magaalada Muqdisho waa magaalo aad yani amaankeedu uu xun yahay wayna adag tahay in lagu sii shaqeeyo amaba qof yani markaas meesha ku sii shaqeeyo laakiin inagu waxaan isku daynay in yani aan sii joogno magaalada oo macnaha oo aan sii sameeyno barnaamijka ujeedadeeni walow warkii dambe inuu adkaasay taas ayaana kaliftay amaan darrada ka jirta magaalada iyo dhibaatooyinka lagu geysanayo suxufiyiinta inaan ka soo degno magaalada
waa garta cabdirasaaq marka waxaad tiri waxaan kasoo cararnaa dalkii dhibaatooyin jira ma waxaa jira markaasi hanjabaadyo aad kala kulmeysaan dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya isla markaana dagaalada ku dhex marayaan guud ahaanba dalka soomaaliya way jiraan hanjabaadyo way jiraan sidoo kale yani dhibaatooyin dhinacyada isku haya dalka soomaaliya aalaba kasoo gaarta suxufiyiinta suxufiyiintana runtii waa dhegaha bulshada oo mar walba waxay tabiyaan waxyaabaha shacabku markaasi xaqiiqda ka hadlaya runtiina labada dhinacba waxay aalaba ay baacsadaan saxafiyiinta oo mar walba midba wuxuu doonaya yani in sida uu rabo un suxufiga uu ka hadlo suxufigana waa midka keliya ee markaasi shacabka u sheega runta iyo xaqiiqda markaasi jirta runtiina dhibaatooyin fara badan aan la soo koobi karin ayay labada dhinacba u geystaan suxufiyiinta waa garta cabdirasaaq marka aan kasoo gudubno arrimahaasi hadda halkii ku kala sugan yihiin xubnihii ururkaasi ka tirsanaa markaasi ku kala sugan yihiin meelo fara badan oo daafaha dunida ah waxaa qaarkood ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho waqtigan aan joogno halka qaarna ay ku sugan yihiin qurbaha runtii qurba joogta ururkii sodej waagaas dhalinyaradii waxaa kamid ah oo aan magacyadooda soo qaadan karaa weriye mahdi cabdi imaam oo imika ku sugan magaalada hamburg ee dalka jarmalka sidoo kale weriye maxamed hilowle oo isaguna ku sugan dalka norway sidoo kale anigu waxaan kamid ahaa xubin ururkii sodej waxaan ku suganahay sida aad horeyba u sheegtay magaalada vienna ee dalka austria waxaa sidoo kale jira weriye mahad dalnuurshe oo isaguna ku sugan imika dalka south africa waa gartay cabdirasaaq waxaad iga warantaa hadda maxaa idin qorshaysan urur ahaan idinka waxaa inoo qorshaysan aniga iyo rag kale oo aan saaxiibanahay oo ka wada tirsanaa ururkii sodej iminka targetkeena waxa uu yahay in aan isku soo celino ururkii dhalinyarada soomaaliyeed ee sodej waxaana raggaasi ugu cadcad saaxiibkay mahdi cabdi imaan oo iminka ku sugan magaalada hamburg sida aan horeyba kugu soo sheegay ee dalka jarmalka mahdi waxa uu kasoo shaqeeyey radioga xurmo ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa barnaamijkan kaalin lexad kaga jira saaxiibkii maxamed cabdulle hilowle oo isaguna ku sugan dalka norway isaguna runtii waxa uu kasoo shaqeeyey radioga xurmo ee magaalada muqdisho runtii waxaa kaloo jira rag kale oo iyaguna kaalin lexad kaga jira barnaamijkan waa gartay cabdirasaaq aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysay inaan ku weydiinayo inay noqoto waxaa tahay nin in badan kusoo dhex jiray howlaha saxaafadda khaasatan warbaahinta soomaaliya maxaa kuga cajiibka badnaa oo aad la kulantay intaa ku guda jirtay qeybahan saxaafadda ama hawsha saxaafadda yaa badnaa waagii aan ku sugnaa magaalada muqdisho runtii waxaan lahaa asxaab aada u fara badan oo iyagu u badnaa kuwa aan isla baran jirnay amaba aan iskula jirnay barnaamijkan saxaafadda maanan isdhehaynin maalin maalmaha kamid ayaad ka tegi doontaa waddankaaga oo aad aadi doontaa qurbaha sida fudud ee aan uga soo tegay dalkii iyo waqtigan la joogo dhibaatada ugu daran ee saxaafadda haysata iyo dhibaatada waddanka ka jirta runtii markaan isku gegeeyo waxay noqonayaan waxyaabo yacni aad iyo aad ugu yaab badan nolosheeda aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq ismaaciil margareti oo ahaa afayeenkii hore ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ama ururka horumarinta suxufiyiinta soomaaliyed sodej lagu magacaabo kaasoo imin ku sugan magaalada vienna ee waddanka austria aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq